دول بدد كيسا دسي اسهلقا بالكيالي إنغالي هذا بالكيالي إنغالي kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba adduunka ka joogtaan iyo waqti walba aad daawaneysaan halkani waa channelka Madala Media haddii aad ku cusub tahay subscribe saar gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaalada xiisaha badan ee aan halkan soo gelino fiidiyoogana like ku qabo waayo adiga wax dhiba kugu ma hayso inaad like saarto fiidiyoogan anigana way iga farxinaysaa oo waxay ii noqonaysaa dardar iyo dhiirigelin haddaba aynu bilowno barnaamijka fanaanka Suldaan Seraar Guhaad oo ku sugan xaramkii barbaarta beertii xorriyadda Hargeysa Harwanaag ayaa gantaalaha ridada dheer ku soo riday kooxda waayaha cusub oo hadalhayntooda maalmahanba ka taagnay social media haddaba Suldaan Seraar oo taageero weyn u ah nabad iyo nolol ayaa ka xumaaday heestii fashilantay ay soo saareen kooxda waayaha cusub haddaba Suldaan oo 2018 markii uu tagay Muqdisho la kulmay madaxweyne Farmaajo ayaa bartiisa Facebook walibana page-kiisa ay ku xiran yihiin dad ku dhaafaya 100,000 ayaa waxa uu soo dhigay sawirka ay wada galeen Farmaajo iyo Khayre iyo qoraal u dhignaa sida tan dalku waa nagi dadkuna nuuriyo nalba u baxo Naasir Maaniyo Nasri Eebaan ku naaloona naxliga ka daaya fanwaanasteexe ma aha nacayb iyo niyad jabkeen nabad iyo nolol inaan wadanahay niyadda galiyo waxaan nuxur lahayn ku noogina way haddaba heesan kooban ee nuxurka xambaarsan ee Suldaanku isla soo kala jeeday ayaa u muuqata mid lagu gamaayo waayaha cusub haddaba daawadayaal waxaa jira fanaaniin badan oo u hiiliyay dawladda fanaaniintaas oo ay ka mid yihiin Xariir Axmed Farxiye Kabayare Dalmaryare Maslax Mideeye Digriyo Cabdi iyo Nimcaan Hilaac iyo sidoo kale fanaanka Marwaan Yare iyo Ilka Casaqays dhamaantoodna waxay ka xumaadeen heestii nabar iyo naxdin haddaba waxaa bilowday xamaasadii doorashada waxaana lagu jiraa waqtigii kala guurka xaaladda bariga dhexe ayay maraysaa Soomaali Ilaahay qalbiyadooda burcad hayso mariyo baan leenahay daawadayaal barnaamijkeena kooban intaas ayaan ku soo afmeerayaa fadlan muuqaalka haddii aad ka heshay like saar channelkana subscribe saar siina share garow asxaabtaada la wadaag ordag madaxweynaha Turkiga haddaad mucaarad noqon lahayd mucaaradkeed noqon lahayd mucaaradka Somaliland sababta aan ku doortay waxay tahay waxay ku dhaleelaan dawladda ama cidda haysa xukunka waxa saxda ay jira markay arrin sax ah timaado arrin sax markay timaadana danta dalka waa laga wada simeeyaa oo mucaarad iyo muxaafidba ay wada taagan yihiin waayahay mucaaradka Somaliland dhinaca haddaan u soo laabano jilista sayd isku tiin dhanka jilista saa isugu si fiican waayahay dad baa fani ku arka caawa ciida waxaad nooga sheekayn lahayd hal sheeko laba sheeko oo fani ah oo is leedahay way naga quslin karaan hal sheeko oo yaan idinka sheekayn xawayaan baa meel isugu yimid fara badan oo marwadi ku jiro libaax dameer xawayaan oo dhan baa meel isugu yimid markii libaax baa wuxuu ka sheekeeyay sheeko aad u qosol badan oo ummadii oo xawayaankii oo dhan ay ku wada qosleen caawa soo duwo kale lugtay ku wada rafteen ninkii dameer ahaa uu iska taagan yahay ma qoslayo isagu dameerkii ma qoslayo waxaan lagu qoslayo ma ku qoslayo kuma qoslayo isagu iska taagan yahay laakiin xawayaankii oo kale oo dhan lugtay ku wada rafteen habeenkii meesha lagu kala tagay habeenkii labadu la isu yimid shabeel baa sheeka amba iyo tahayno maraxu ka sheekeeyay dadkii xawayaankii kale nin muu qoslin way iska wada aamuseen wax fanay ma ahayn dameerkii baa lugta ku raftay waa la weydiiyay war dameer dee wax sheekadan sheeka lagu qoslaa ma maxaad ku qososhay tii habeen horaan soo xasuusta kula waayahay tii habeen horaan soo xasuusta siyaabo kale loo kala farsiran karaa waan ku daynaa waayahay barnaamijkii gabagabadiisa ayaan soo gaarnay waa barnaamijkii ciida qabanqaabayaasha barnaamijka ayaa waxay dhaheen dhinacii isku dayga fahankiisa maadaama uu noo sheegay isku daygii dhanka waxa weeye dhagooleyntii ama midaarkiina aad buu wax u keenay inteen eeg baad jimicsataa jimicsiga say isku tihiin jimicsiga saa isuguma si fiicnin laakiin noocee ka heshaa orodka fayda mise rucleynta fayda iskuma fiicnin waayahay dhinaca farsamada gacanta say isku tihiin farsamada gacanta saa iskuma fiicnin cuntooyinka ma karin taqaanaa ما يعنتوينك فول كان كرا فول ها ويه أنا أقول لك رسي قف مكوع سنتي
ها عنا كريي ها أنا نيروبي تشوجا فول بها ما سوقون بيهت لكن فرن بلقعني يا دبي حاسكيجا oo amu badal suwaye ma sha Allah dhinaca waxaan soo galeynaa way dhahan waxa way raggan asxaabta ah ee universal iyo warbaahinta waxay dhahan bal aan challenge garayno inteen la eg buu gacan fudud yahay aniga ahaan markaan kula hadlayo Ismaaciil ahaan iskuma fiicnin farsamada gacanta ha ka yaabin صح marka kulama tartamayo waxay dhahan challenge yar baan u soo wadnaa oo arkaya challenge-gaas waxa weeye okay waa kana waxay dhahan shamac baanu keenay xabad tarqa imisa shamacuhu suldaankii ku shiri karaa suldaan okay صح tarqaas lagu dhiibi hal mar baad daaraysaa هل مرة بريدة ترقة hal mar baad tarqa ridaysaa shamacaantan waan ku tirnina inta daartid واي u qabo ما توصي أنا هسكع فوفن هدو مركز دم بسوي كان حبتها بس أجي وأجوبتي اوكي وارسبي قاعد فضيت والله صوبحي aad buu mahadsan yahay suldaan Seraar Guhaad oo ah hobalka ciidan ciidul fidriga ee 1441 kan ugu ciidaya magaalada Jigjiga hadaan nahay bahda Universal TV iyo waliba taageerayaashiisa waxaan si gaar ah ugu mahadnaqaynaa waa Turkey style carwada dharka iyo uduga oo ay leedahay gabadh ugaasadayadii hooda ugaas mahad oo ayada gacan weyn ka qaadatay qaban qaabada iyo isku dubaridka barnaamijkan Turkey style ayaa gacan ka geysatay qaban qaabadiisa aad baan ugu mahadnaqaynaa waa dhalinyarta dhinaca waxa weeye ganacsiga dhawaan ku biiray oo waxa weeye waxay ku takhasustay dharka ragga noocyadiisa kala duwan waayahay waa gabagabadii baan soo gaarnay annagoo aad ugu mahadnaqayno dhammaan ka soo qaybgalayaasha iyo waliba howlwadeennada barnaamijkan isku soo dubariday suldaan dadka intaysan aad noogu caajisin heestii labaad baan isleeyahay aan miiska u soo saarno waa hees cusub aan ku sii dayno kadibna bal aan siira xal wareysano barnaamijka saa ku soo xirno waa heeska labaad in barnaamijka ugu talagalay waxaa ereyada sameeyey abaan xaraf laxanka dab jacayl baa sameeyey muusiga maca madaxweynaha Turkiga haddaad mucaarad noqon lahayd mucaaradkeed noqon lahayd mucaaradka Somaliland sababta aan ku doortay waxay tahay waxay ku dhaleelaan dawladda ama cidda haysa xukunka waxa saxda ay jira markay arrin sax ah timaado arrin sax markay timaadana danta dalka waa laga wada simeeyaa oo mucaarad iyo muxaafidba ay wada taagan yihiin waayahay mucaaradka Somaliland dhinaca haddaan u soo laabano jilista seed isku tiin dhanka jilista saa isuma si fiicnin waayahay dad baa fani ku arka caawa ciida maxaad nooga sheekayn lahayd hal sheeko laba sheeko oo fani ah oo is leedahay way naga quslin karaan hal sheeko oo yaan idinka sheekayn xawayaan baa meel isugu yimid fara badan oo marwadi ku jiro libaax dameer xawayaan oo dhan baa meel isugu yimid markii libaax baa wuxuu ka sheekeeyey sheeko aad u qosol badan oo ummadii oo xawayaankii oo dhan ay ku wada qosleen tanaawa soo duwa kale lugtay ku wada rafteen ninkii dameer ahaa uu iska taagan yahay ma qoslayo isagu
dameerkii dameerkii ma qoslayo waxaan lagu qoslayo ma ku qoslayo kuma qoslayo